السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub oo aan ku eegi doono shanta dal ee ugu quwadda badan dhanka militariga. Haddaba daawada haddii aad ku cusub tahay kanaalkan Baaq TV fadlan subscribe noo dheh si ay ku soo gaaraan muuqaalada dambe ee aan soo gudbin doono. Number 5 France waa dalka shanaad ee ugu ciidanka iyo hubka badan caalamka, waxa uu kaalinta koobaad kaga jira qaaradda Yurub. France wuxuu haystaa 1200 oo ah diyaaradaha dagaalka iyo 406 taangiyada dagaalka iyo 6300 oo gawaadhida dagaalka iyo 118 markab oo kuwa dagaalka. Dhaqaalaha ku baxa ciidankaasina wuxuu cadadkeedu gaarayaa 40 bilyan oo dollar. kaalinta afaraad Hindiya waa dalka afaraad ee ugu ciidanka iyo hubka badan caalamka. kaalinta saddexaadna wuxuu kaga jiraa dalalka ugu awoodda badan qaaradda Aasiya. Hindiya ciidamadeedu wuxuu dadka ku nool wuxuu gaarayaa 1.3 bilyan, halka ciidamadiisuna militariga ay gaarayaan 4.2 milyan askari, halka ay ciidamada heeganka ku jiraana ay yihiin 1.2 milyan askari. diyaaradaha dagaalka ee dalka Hindiya waxay yihiin 2100 diyaaradood. taangiyada dagaalkuna waxay gaarayaan 4400 oo taangi. gawaadhida dagaalkuna waxay gaarayaan 3100 gaari. maraakiibta dagaalkuna waa 2295 markab. dhaqaalaha ku baxa ciidankaasina wuxuu gaarayaa 47 bilyan oo dollar. Hindiya waxa ay dagaal kula jirtay in badan dalka ay jaarka yihiin ee Pakistan. Number 3 China waa dalka saddexaad ee ugu hubka iyo ciidanka badan dhanka militariga qaaradda Aasiya. wuxuu kaga jiraa kaalinta labaad, waxa ka horeeya dalka Ruushka oo kaliya. China waa dalka koobaad ee ugu dadka badan adduunka, dadkiisuna waxa ay gaarayaan 1.4 bilyan, halka ciidamada militariguna ay yihiin 5.5 milyan. ciidamada heeganka ku jiraana waxay gaarayaan 2 milyan oo askari. diyaaradaha dagaalka ee China waxa lagu qiyaasaa tiradooda 3000 oo diyaaradood, halka taangiyadiisuna ay gaarayaan 7700 oo taangi iyo 9000 oo ah gawaadhida dagaalka iyo 714 markab oo ah kuwa dagaalka. dhaqaale ahaan waxa ku baxa 151 bilyan oo dollar. ciidamada dalka China kulligood waa China citizen. kaalinta labaad Russia waa dalka labaad ee ugu ciidanka iyo hubka badan dhanka militariga, wuxuuna kaalinta koobaad kaga jiraa qaaradda Aasiya. dadka ku nool Ruushku waxa ay gaarayaan 142 milyan, halka ciidamada militariga Ruushkana ay gaarayaan 3 milyan iyo 500 oo askari. diyaaradaha dalka Ruushku waxay gaarayaan 3900 oo diyaaradood, halka taangiyada dagaalkuna ay yihiin 20300 oo taangi. gawaadhida dagaalka Ruushkuna waxay gaarayaan 27400 oo gaari. maraakiibta dagaalkuna waxay gaarayaan 352 markab. dhaqaalaha ku baxaana wuxuu yahay 47 bilyan oo dollar. kaalinta koobaad United States of America, dalka koobaad ee ugu awoodda iyo ciidanka badan dhanka militariga caalamka oo dhan, waa dalka saddexaad ee ugu dadka badan adduunka. waxa ka horeeya China iyo India oo kaliya. Mareykanku wuxuu horumarka ballaaran ka gaaray dhanka tiknoolajiyadda. diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku waxay gaarayaan 13000 oo diyaaradood iyo 6000 oo ah taangiyada dagaalka, 93000 oo gawaadhida dagaalka 415 markab oo kuwa dagaalka dhaqaalaha ku baxaana wuxuu gaarayaa 647 bilyan oo dollar. haddaba daawada haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe noo saar.